barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi iyo maamulka magaalada Wajaale ayaa maanta dhagax dhigay jid laami kaasi oo isku xiri doona qaybo kamid ah suuqyada magaalada Wajaale. Mas'uuliyiintani oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa halkan maanta waxaynu joognaa inaynu dhagax dhigno wadada kiiloomitirkeeda lagu qiyaasay 5 mitir wadadan oo noqonaysa wado soo kordhin doonta bilic degmada Wajaale. magaalooyinka waxa lagu qiimeeyaa qaabka bilicdooda ay u samaysan tahay sida ay u dadaaleen ganacsatadan hawsha iska xil saaray oo aan aad ugu mahadnaqayo waxaan jecelahay ganacsatada kale ee reer Wajaale ee sidan oo kale sikadoodii ay yihiin inay iyaguna kaga daydaan oo ay horumarka Wajaale cid allaale cid aan uga habranayo ama uga daba fariisanaya ma jirto wax kasta iyo cid kasta oo soo dhaweynaysa horumarkana waan soo dhaweynaya gacmo furan ku soo dhaweey wallahi cid kasta oo dib u dhac ku keenaysa degmadana anagoo iska kaashanina ilaa min heer gobol ilaa madaxda kale qaranka gacan ayuu iska qabato waxaan leeyahay maanta wadada adarkiisa waa halbowlaha tog Wajaale waa horumarkii horta alxamdulillah rabbil caalamiin maanta isagoo degmooyinka leh saa ugu dhiiri gelinaya inay horumarka ka shaqeeyaan runtii waxay noo harsan ganacsatada halkan ka hadlay wuxuu sheegay in la iskaashado oo iskaashi lagaga baxo hawl kastoo jirta ilaahay khayrkiisa soo badan waxaan u mahad celinayaa dadka reer tog Wajaale ganacsatada iyo maamulka degmada iyo gudoomiyaha gobolka iyo cid kasta oo ka qayb qaata hawshan bilicda imika hagaajinta sida goobba ka hadlayay kaliya anigu waxaan hadalka ugu soo noqonayaa inaan anagu haddaan bilayskiin nahay in amniga ka qayb qaadano oo inta nagaga habboona ka qabano halkan aynu taaganahay waxa weeyaan magaalada Wajaale wadnaha magaalada wadada marta oo ku soo jeeda ay ku soo jeedaan bakhaaro koonayaasha wadada oo bilicdeeda magaalada way kortay Wajaale way weynaatay Wajaale magaalo yar bay ahaan jirtay laakiin caasimad bay noqotay imika wadada halbowlaha magaalada ah waa wado maanta magaranaysa ay u joogno bilicdeedii iyo qurxinteedii si looga shaqeyn lahaa wadada waxa magaranaysa maalgelinteeda leh oo iska kaashaday ganacsatada magaalada gaar ahaan bakhaarada ku soo jeeda wadada la dhisayo iyo dawladda hoose waa Cabdirashiid Saybaan Muuse Somali Cable TV magaalada Tog Wajaale.